السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka hadlayaa dhagaalanoodi dhegeystayaashada qiimaha kaa yaalo barnaamijkii programka badbaadada beelweynta ay sasaad u barateen hawada kasoo duuri jirtay. maanta waxaan jaan soo helay madaxweynaha Taylor Alugaya ama asli Outland State of Somalia oo khadka telefoonka maanta kula xiriiray. mudane madaxweyne, assalaamu calaykum. maxamed. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدبن إني سلام يا دمان ملك السود جوكتان با أدنى وادو ما تنتهي هذا قال أدبن ما تنتين وياي مدني مدحويني مدبلا على قال ورئيسة الدوريسة مدلغة السنة ومركو الرئيسة إنجان سكوه اللي خدك التلفون كأذيقو أو أكرا قوشيا واشنطون iyo New York aan kula kulanay in yar dhageystayaashu taariikhdaada si ay u bartaan adigoo madaxweynihii Outland State of Somalia ah. bal yar taariikhdaada in yar soo koob oo dadka bal xasuusi. Assalaamu calaykum. tan iyo maalintaan kasoo tegay carrigii Soomaaliya waxaan ku sugnaa magaalooyinka New York, Washington, Baltimore. waxaanan intii hore ku hawshanaa waxbarashadii aan u imiday waddanka, kadibna waxaan ka soo qabtay hay-ado kala duwan iyo dhanka dawladdaba shaqooyin kala duwan. ilaa imikana waxa aan ku suganahay agaarka Washington. waxaanan inta badan aan falowgareeyaa ama aan ku hawlanahay hadday noqoto heer congress iyo hadday noqoto heer senate iyo hadday noqoto heer stateba arrimaha Soomaaliya ee kala degla gaar ahaan nationka mas-uuliyadday saaray ee aan imika aan maaragtay aan majaraha u hayo. taas waayahay madaxweyne soo dhawow hadhagaalanood ku soo dhawow barnaamijka beelweynta aysana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta naga aqbasho waraysiyadeeda. taasi taariikhdeeda Soomaaliya halkeed kaga dhalatay mar labaad haddaan ku noqdo? Soomaaliya waxaan ku dhashay magaalo la yidhaha Cabdulqaadir. xadkuna buurana ay ku gadaaman yihiin. waa Saylac district waan garanay. anigoo su-aalahaygu ay fara badan yihiin una soo koobi doona adiguna ila soo fahamsiin 20 minutes baan haysanaa. waxaan kaa weydiinayaa wax Soomaaliya maanta allah naxariistay nin xildhibaana Cabdillaahi Qayaad Barre ayaa shalay la aasay oo ku dhintay hore ay halkaa ku dishay xildhibaan ka tirsanaa. maxaad kala socotaa? maxaad taariikhdii nololmeedkiisii maxaad ka taqaanaa? bal dhegeystayaasha in yar halkaa uga sheeg, kadib waxaan u galaynaa qaybta siyaasadda. ilaa iyo daraato mar subaxnimadii markii uu dilku dhacay waxaanu wada hadlaynay mas-uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya, hadday noqoto heer wasiir iyo hadday noqoto heer baarlaman iyo hadday noqoto heer maaragtay ammaanba ama nabad sugidba. waxaa xaqiiqo ah oo imika la hayaa in ay arrintu marka hore ay ka kacday arrin xag maaragtay familia oo maaragtay xaaskii uu qabay xamar uu ku lahaa iyo ay waxoogay ay mashaqihii ka dhex taagnayd, idna dadkii iyada metelayay xaggeeda ka socday ay ku dhex jireen oo laysku maslaxayo arrin maslaxaad socota ay ahayd. wax lagu kala boodsanaa maan ogi ilaa imika, laakiin arrintu halkaa inay ka bilaabatay baan ogahay. deedna Cabdillaahi Qayaad Barre isagoo daraad ku socda xagga baarlamanka oo shalay daraadna waxayd maalintii dawladda la ansixiyey federaalka Soomaaliya ee uu soo dhisay prime ministerku. marka wuxuu u socday inuu foodkiisa dhiibto oo uu baarlamanka uu tego oo maaragtay codkiisa dhiibto. deedna gabadha ay wada joogeen la isku maslaxayay dhibaatada ka dhex taagnayd nin afti u ah oo arrintana markii hore ku jiray ayaa u yimiday markii uu baarlamanka hortiisa baabuurkiisa ku baarkin gareeyey.
ama meel ku dhow markuu u yimiday cabdillaahi qayaad bare dirawalkiisu wuxuu yidhi ninkan baan wada hadal leenahay oo aan wada faqaynaayo in yar naga raalahaw oo baabuurka nooga dhaadhac uga dhaadhacay idna ninkii gabadha abtiga u ahaa baabuurku soo galay wada hadalkiibaa u socday baabuur kalea kolkiiba soo istaagay waxay markaa ay toogteen oo ay rasaasta ku tiriyeen cabdillaahi qayaad bare si degdega ayuu isagu halkii ugu nafwaayo ku dhintay idna ninkii gabadha abtiga u ahaa uu ka dhaadhacay baabuurkii cabdillaahi qayaad bare uu watay waa sidii dirawalkii uu arkayay uu noo sheegay ama dadkii kale goobjoogka ahaa uu ka dhaadhacay markii uu ka dhaadhacayna idna baabuurkii meesha soo joogsaday ee cabdillaahi qayaad bare toogtay baabuurkiibuu raacay ilaa iminka magaciisoo saddexan waa la hayaa reerka uu soomaali ka yahayna waa la hayaa laakin isagii lama hayo hadda imika ilaa imika muddo 3 cisho dirba gaadhay arrintan dadkii dawladdu wax may qabatay gacan duglayaashii maya gacan ku-dhiiglayaashii toogtay ee isaguna uu kamidka ahaa waa ninka qorsho oo dhan lahaa sida maaragtay arrintu ay tahay isagii iyo raggii toogtayba waa lala-yahay fara laguma hayo laakin xaaskiisii ayaa maaragtay ciidamada dembi baadhista iyo nabad sugidda ay gacanta ku hayaan imikana xabsigii ku jirta oo la wareysanayaa ciidamada nabad sugidduna ilaa imika way baadi goobayaan oo way raadinayaan goor ay helaanba waayahay haddana waxaan imika u wareegaynaa qaybta siyaasadda maadaama soomaaliya dawlad cusub la dhisay xildhibaano waxaan ogey 8 inay soomaaliya ku lahayd maxaasan qabsi dawladdii soomaaliya ama somaliland halkeeba ama maxaadse xidhiidh la leedahay adigoo madaxweynihii outherland state xidhiidhadaadu iyo waxaad kala socotaa halkaa bal warbixin hanagaalan u dhegeystayaasha bal xaggaana adigoo soo koobaya asalaamu calaykum aan kaga bilow tuqushi kaga bilow lowi cadde tuqushi sayda ceelgaal lughaya beeye dhaadheer jiri xariirad cabdulqaadir ilaa iyo ceel sheekh ilaa iyo nawaaxiga uu nationku ama ummaddu daadsan tahay tuulo ayaan ula socdaa tuulo ayaan ula xidhiidhaa aad baan iskugu xidhannahay haddaad wax iga weydiisay siday su-aashaada u muuqatay dawladda federaalka ee soomaaliya 8 xubnood baa ku jira wasiir ku-xigeen iyo wasiiral dawlena waanu ku leenahay dawladdan cusub ee imika lasoo dhisay waana arrin aan saluugsannahay waana arrin uu ogsoon yahay madaxweynaha federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud waana arrin la sixi doono sida aan isku afgaranay ee la ogyahay ee mas-uuliyiinta halkaa noo jooga oo ah maaragtay rag siyaasiyiina siyaasadana maaragtay aada ugu dhow daloola waxaanan beesha u qaadmaynna aanan u qaadmayn soomaali jacayl iyo wanaagna la socda dawladda federaalka ee soomaaliya inay tallaabo qaado oo ay maaragtay dawladaha adduunka kamid noqotana maanta calanka u sida marka waxa weeyaan taasi balaayo kama ogna wixii la tabanayana waa wax la hagaajin doono ragga mas-uuliyiinta ee halkaa maaragtay beesha u joogaana waa rag aan ninba una ninka dhicin oo maaragtay hadday noqoto dawladda federaalka ee soomaaliya danta soomaaliyeed ee guud iyo tagaar ahaaneedba waa niman u foojigan taasi waa taa waxaana rajaynayaa maalmaha soo socda ilaa ama sanadaha soo socda in dawladda federaalka ee soomaaliya ciidamo badan lanoogu daro inaan dawladdu waa muraadii ay ummaddu iska arkaysay inaan maaragtay beelaha soomaaliyeed aan dhan waliba aan kala mid noqono taasina waa negotiation hadday noqoto markay halka washington yimaadeen iyo hadday noqoto xagga dalka gudihiisaba waa negotiation noo socda waanu mid meel fiican maraya taa federaalka halkaaba kala halka aan ku yar joojiye adhagala news waxaa nala soo xidhiidhay arday badan oo sayla iyo lugayo area ka soo jeeda ama aan idhahdo beesha ciise madeeqyo badan oo tacliinta yaa soomaaliya somaliland ba la siiya 25 sanena dhaafayna deeqda dhalinyarta ciisu ma helin egypt iyo yemen iyo sudan iyo turkiga dhalinyar badan oo iyaga dadka geeyeen oo deeqaha soomaaliya turkiga ama adduunka kaleba u bixinayo hadday sida somaliland tahay soomaaliya arrinta maxaad kala socotaayoo deeqdii beesha maadaama soomaaliya beel qaybsi ay tahay si aan qaybsigii beesha aada madaxda u tahay halkeebaad wax maxaad kala socotaa ardaydana
maxaad ku caawin kartaa? dawladda federaalka soomaaliya ayay su-aashaada ku beegan tahay saan filayo. weli somaliland umaan gelin. dawladda federaalka ee soomaaliya waa dawlad maaragtay dhibaatooyin badan xalilaysa. waa dawladda federaalka soomaaliya oo dhan calanka u sida. waana dawlad didibada imika adkaynaysa oo guntigiijis ku jirta. scholarshipyadaas way jiraan, deeqahaas way jiraan. turkiga oo keliya ma ahe, hadday noqoto wadamada jaarka iyo hadday noqoto wadamada yurubiyaanka iyo hadday noqoto kuwa bariga iyo hadday noqoto kuwa galbeedkaba, ama ha yaraato ama ha badnaato, deeqa badan baa kusoo dhaca. deeqahaduna waxbarasho oo keliya ma ahe, waa xagga infrastructureka, waa xagga ceelasha, waa xagga caafimaadka, waa xagga maaragtay waxbarashada iyo iskuuladii burburay in dib loo dhisaa. marka waxa weeye waana arrimo aan dawladda federaalka ee soomaaliya ay ummadda soomaaliyeed oo dhan formulooyi cadde ilaa iyo maaragtay xadka kenya aan la leenahay, dhan kastood soomaaliya ka eegta bari iyo galbeed iyo waqooyiba, ay ummadda soomaalida inay ka qayb gelisa ay doonayso. waana arrin miisaan ku taalla. waana arrin 4.5 waxa la yidhaahda lagu dhigay. waana arrin laysku eeganayo oo maaragtay xaqeeda iyo cadaaladeeda in laga mara ah. marka dawladdu waxyaabo badan iyo dadaal badan bay ku jirtaa dawladda federaalka soomaaliya. waxayna maaragtay ay u heegan tahay inay ummadda soomaaliyeed meel iskugu keento, nabadna ay maaragtay ay ku wada waaraan. dawladduna ay noqoto mid federaal ah oo cid waliba ay maaragtay ku jirto, ayna habina ku tahay. marka waxaan rajaynaynaa su-aashada ugu dambaysa su'aalaha ugu dambeeya halka ii joogso. aan ku dhigo qodobka labada sane soo socoto waxaan rajaynaynaa wax wanaagsan. ummadda soomaaliyeed dhammaanteedna waxay rajaynaysaa wax wanaagsan. taana halkaaba kaga baxay. waxa weeyaan maadaama aad adigu madaxweyneha awdalaan tahay, maantana soomaaliya la dhisayo maamul goboleed badan la samaynayo. maamul goboleedkaagu hormuu lugaha isku taagi oo saylac caasimadii oo dhidibada u taagi oo dhaqaalihiina soomaaliya ka soo qaadi. taasaa la sugayaay. halkee bay wax kuu marayaan? maxaad aad filaysaa? waxaan keliya un su-aashaada kusoo koobayaa, aanan kaga baxayaa meel fiican bay wax marayaan. at the end of the dayna waxa weeye arrintani waa arrin u taalla nationka ama beesha areada degta. waana arrin maaragtay aanan ku koobnayn oo keliya aniga, waa arrin ay mas-uuliyada ka saaran tahay dhammaan madaxda nationku uu leeyahay. hadday noqoto gendaha iyo hadday noqoto ugaadka iyo hadday noqoto maaragtay jabuuti iyo hadday noqoto maaragtay dhammaan dadka ciisaha metelaya ee maaragtay majaraha u haya nation of ciisa ama mandaqatul ciisa. maanta haddaad eegto waxyaabo badan oo halkoodii aanan saarnayn baa jira. waxyaabo badan oo aan ka buudsanahay baa jira. waxyaabo badan oo in la saxa u baahan baa jira. waxyaabo badan oo the supreme leadership of ciisa ama maaragtay maamulka sare ama hoggaanka sare oo ummadda ciiso intay meel iskugu timaado la iska arko ayaa loo baahan yahay. habase noqoto haddii aan xagga soomaaliya aan ku soo noqdo, taasi waa ummad u taal, waa arrin u taalla gaar ahaan nationka oo dhan. nation of ciisa waa arrin u taalla. ay nationka mine maamulkaas awdaland state of Somalia ayaan ka hadlayaa. yacnaa adigu maanta madaxweyne u tahay iyo halkaas wax ka wado. dawladda federaalku waa dawlad macquula. waxay noo diidan tahayna ma jirto. negotiationna wuu noo socdaa. waana arrin aan filayno si degdeg inay guuri ugu dhammaantoonto. maamulka asal awdal oo markii hore loo yaqaanay saylac lughayana waxa uu maaragtay uu ka tirsan yahay gobollada waqooyiga ee imika loo yaqaano somaliland. somalilandna waa total failure weeyi. ummadda asal awdal ama saylac lughaya ilaa iyo toqoshi deganna cabdulqaadir iyo xariirad nawaaxiga intaa leeg ee bad iyo buurlaba deganna oo weliba dhul masnacana iyada maamulka somaliland lanaguma darin ee dibadda lanooga saaray. dhowrka qof ee lagu darayna waa dhowr ah awda maqashi oo waxba u qaban oo maamulku ku adeeganaya. dawladda somaliland waa dawlad failure ah. waana ta keentay maamul goboleedka asal awdal la yidhaahdo
inaan la baxno awooddeeda maanta waan leenahay ilaah baa awood leh waanan maadaama dibadda lanooga saarayna maamulku waa mid annaga noo yaala laakiin dawladda federaalku waa dawlad maaragtay aan annaga waxba noo diidanayn waana dawlad hadduu ilaahay idhahdo mustaqbalka dhow markay awoodeedu gobollada soomaaliya o dhan gaadho maaragtay aad arki doonto siday wax u socdaan oo odhan maayo halkaasaan wax ka bilaabaynaa iyo sidaabay wax u wadaani waxaa la yidhi geela u wada jirtaa uuna kala jirtaay gobolka asal awdal waa gobol isku filan waa gobol dadkiisuna uu ku filan yahay waa gobol iska caabiyi kara abuuska iyo dhibaatada ay somaliland ku haysa waana gobol soo dhaweynaya dawladda federaalka soomaaliya waa ka baxay haye mudane waan soo gabagabaynaynaa tacsidii maanta ku dhacday cabdillaahi kayaad haydi qaraabadii iyo faamiyadii iyo dhammaan ummadda waxaad kusoo gabagabaynayso ama dadka tahniyada waxaad u diri halkaa kusoo koob wasalaamu calaykum dhammaan tahniyada waan u horumariyey oo salaan qaali ah naftayda qaali ku ah toodan aan filaya inay saameyn doonto ayaan u dirayaa qoyskii oo cabdillaahi kayaad bare oo nin aada u wanaagsan ahaana uu ka geeriyoodayna ilaahay samir iyo iimaan ha naga wada siiyo annagii iyagaba ilaahay isagana qabriga ha u nuuro waxaan gaar ahaana aan maaragtay aan la hadlayaa oo aan si gaara u salaamayaa ooridiisa iyo carruurtiisa mid kamid oo aaskii shalay 12 duurnimo muqdisho ka dhacay joogay intaba waxa weeye xanuunka iyo dhibaatada waan inala qabnaa laakiin waxa weeye waktigiisiina waa uu dhamaaday gacan ka xaq darina waa ay dishay marka insha allah jannatul firdawsa ayaan maaragtay aan ugu ducaynaynaa ilaahay inuu raalli ka noqdana oo kuwa ilaahay jeclaaday oo jannatul firdawsa uu maaragtay ugu bishaareeyana inuu noqdaan ugu ducaynayna intaa ka horeysana ilaahay inuu qabrigiisa u nuuro kuna jannaysiiyo oo albaabo badan iyo daaqado badan uu jannada ugu furo ayaanu rajaynaynaa waxaan taas waa mid dhammaan waxaan aan salaan gaara u dirayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtaba dawladda federaalka ee soomaaliya waxaa dawladda jabuuti iyo dhammaan ugaaska ciisa ama boqorka ciisa iyo gendaha uu fadhigoodu yahay magaalada diridhabe waxaanan aan leehay waxaanu jecelnahay siyaasiyiinta ciise iyo gendaha iyo boqorka ciisuba inay isku xidhmaan oo saddexdaa wadan ee ciise uu maaragtay ku guda jiro inay maamul guud ay yeeshaan iyo difaac guud halkaasaan kaga baxaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu